wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhowooda garaad koriye sheeko ku saabsan waayaha iyo walbahaarka adduunka mawalada dhallaanka casharro iyo cilmiye aad wax badan ka baran karto ayaad kala socon kartaa haddii aad si joogta ugu xidhanto janal aqooneedka garaad koriye kuna soo dhowooda murtida maada iyo toddobaadka maxay tahay sababta boqoradani ay 100 sano u seexatay maxayse dadkii qasriga boqortooyada ku noolaay oo dhan ay ula seexdeen haddii aad doonayso inaad ogaato xigmadda sheekada tan ka dambaysta ku soo dhowow garaad koriye aan ku bilaabo waxa la yidhi beri hore ayaa waxaa jiray boqor iyo boqorad ka talin jiray boqortooyo ballaadhan oo maamuli jiray deegaano kala duwan waxay ahayd boqor iyo boqorad aan wax u wada lahayn sannado tiro badan ayay eebba ka tuugi jireen in alla ubad siiyo balse ma suuragelin sanooyin tiro badan wakhti cimrigooduna da' ku sii dhowaanayo ayaa alla siiyey gabadh qurux badan boqorka iyo boqortooyaduba si ba'an ayay ugu farxeen gabadha qoyskooda ku soo birtay waxaana aabbaha boqortooyada boqorka ka ahi uu go'aan ku gaadhay in xaflad dhalasho oo ballaadhan uu gabadhiisa u dhigo waxuu casumay dhammaan dadkii boqortooyada ku noolaa dadka la casuumay waxaa ku jiray 13 dumar oo caddaana waxay ahayd dumar boqortooyada la jaara mucjisooyin kala duwan ayay lahaayeen balse markii qasriga boqortooyada iska soo xaadiriyeen ayaa lagu wargeliyey in boqortooyada ay yaalaan 12 saxan oo dahaba oo keliya oo ay wax ku cuni karaan waxaana loo sheegay in mid ka mid ah iska laabato midii 13aad ayaa iska tagtay iyadoo cadhaysan xaflad kadib dadkii boqortooyada isugu yimi ee 12 dumar ee caddaanka ku jiraan oo dhan waxay u duceeyeen gabadha yar ee boqorka iyo boqoradda u dhalatay midba waxay ugu duceeyey kuwa ay hanti iyo maal ugu duceeyey kuwa kale qurux iyo caafimaad ayay ugu duceeyeen kuwa kalena cimri dheer balse markii tii ugu dambaysay ee haweenka 12 ee la casumay la soo gaadhay ayaa waxaa ka soo horumartay midii 13aad ee casumadda laga reebay markii saxan dahab ay wax ku cunto loo waayey waxaa tidhi aniga imaad casuumin dadkoo dhani way ku duceeyeen aniguse waan ku habaarayaa anigu ku ducayn maayo ee weynow oo taabagal markaad 15 jir gaadhana irbadi ku mudday oo u dhimo dadkii oo dhan ayaa naxay oo boqorka iyo boqoraduna ku jiraan kadibna waxaa timi gabadhii 12aad ee qumayadu ay ka soo horumartay waxay tihi habaarka qumayada waxba kama qaban karo waxaase kugu ducaynayaa inaan alla ku aqbalin ee halkii aad ka dhiman lahayd aad seexato 100 sano gabadha yar ee qoyska boqortooyada ku soo biirtay ayaa barbaaraysay aabbaha iyo hooyada dhalina waxay boqortooyada ka gureen wax kasta oo wax mudi karayay irbado muxaadho iyo biro kasta oo af lahaa kadibna way gubeen muddo fara badan ayay koraysay way barbaartay waxayna gaadhay da'da 15 jir waxay noqotay gabadh qurux badan oo qasriga boqortooyada iyo deegaanka boqortooyadu ka talisoo dhanba laga jecel yahay maalintii ay soo gaadhay u dabaaldega da'deeda 15 jir warwar iyo walbahaar badanna aabbaha iyo hooyada dhalay u hayo kana cabsin qabaan in habaarka qumayadii habaartay maalintii dhalatay uu ku soo baxo ayaa boqoradu waxay si lama filaana u gashay qol ka mid ah qolalka qasriga boqortooyada oo aysan weligeed gelin waxay ugu tagtay gabadh ku tolanaysa dhar dawaar ayay leedahay weligeed dawaarka maysan arkin iyadoo eegaysa waxay gabadhani samaynayso ayaa waxaa si lama filaana farta ugu muday irbad ah tan ay qumayadu ugu tala gashay oo ah gabadha dharka tolanaysay markii irbaddu muddayna boqoraddii waxay gashay hurda 100 sano ah kelideed may seexan ee waxaa seexday dadkii qasriga boqortooyada kula noolay oo dhan oo aabbaha iyo hooyada dhali ay ku jiraan dhammaan shaqaalihii boqortooyada xayawaankii ku noolaa qasriga boqortooyada nooc kasta ay yihiin xataa dabka ayaa istaagay oo baktiyey dhammaan boqortooyada ayaa hurdo gashay waxaana dhismaha qasriga boqortooyada isku maray oo ku baxay dhir qodax daran leh oo guudka sare ka ilaalinaysay sheekada mucjisada leh iyo masiibada boqortooyada ku habsatay ayaa deegaanka
oo dhan ku faaftay sannado badan oo 100 sano gaadhaya ay dadkuna isku gudbinayeen boqorro tiro badan oo deegaano kala duwan ka soo safray ayaa isku dayay bal inay ka war doonaan sida xaaladda gudaha ee qasriga boqortooyadu tahay balse dhirta ba'an ee isku martay ayaa qof kasta oo qasriga u soo dhowaada mudi jirtay kadibna isagoo dhaawaca ayuu dib isaga laaban jiray sannado badan kadib markii 100 sano ay ka soo wareegeen xilligii boqoradu seexatay ayaa waxaa yimid boqor mucjiso gaara leh waxa uu soo dhowaaday qasriga boqortooyada sheekada ayaa sannado badan ka hor looga sheekeeyey markuu dhismaha boqortooyada u soo dhowaaday dhartii qodaxda daran lahayd ee qof kasta u yimaada mudi jirtay ayaa amarka alle isku beddeshay ubax midabyo kala duwan leh si dhibaato yar ayuu boqorkuna u soo galay qasriga boqortooyada wuxuu arkay noolihii halkan ku noolaa oo dhammaantood hurdo ku jira cidna aysan waxba ka noqonin waxuu hare ka galay qolkay boqoradu ku jirto kadibna madaxa ayuu ka dhunkaday markii uu dhunkaday ayay mar kaliya indhaha qaaday oo toostay si mucjiso ah kelideed ma toosin ee waxaa toosay dhammaan noolihii qasriga boqortooyada ku noolaa ee seexday boqoradda iyo boqorka dhalay boqoradda xayawaankii iyo shaqaalihii ka shaqaynayay qasriga boqortooyada dhammaantood mar keliya ayaa waasani u baryey aabbaha iyo hooyada dhalay boqoradduna waxay wiilkii noloshooda badbaadiyey ugu abaalgudeen inay u guuriyaan gabadha yare boqoradda sidaasna waxa uu ku noqday boqorka la wareegay qasriga boqortooyada gursadina gabadhii ay dhaleen boqoraddan iyo boqorkan da'da ah hadda waxaan filayaa inaad fahantay xigmadda ka dambaysay boqoradda 100 sano hurday haddaad sheekadan ka heshay ta ku xigtana aad doonayso inaad ogaato ku soo biir garaad koriye janalka murtida iyo maaweelada cashare iyo cilmiyo wax ku tari kara tan iyo toddobaadka soo socda intaynu ku kulmayno sheekada ta ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wakhtigu idin wacnaado